xafladan maanta waxaa leh ardada waa dafcadii ugu tirada badnayd ee isku mar ka baxda dugsiga sare waxaa sanadkan dugsiga sare ka qalin bedelatay ama ka qalin jabiyey Burtinland Secondary School 156 arday ayadoo marba uu heer soo marayay ayadoo dafcadii ugu horeysay ee ka qalin jabisa ay ka qalin jabisay dugsiga sare 2008 dafcadii labaad 2009 maanta aan joogno 2020 waa dafcadii 13aad ee dugsiga sare ka qalin jabinaysa marka koowaad ayaga waxaan leenahay ilaahay idankiis kuwa wax barta sii wada aqoonta bulshadooda anfaca qiimo ku yeesha aqoonta ay barteen bulshada wax ku soo celiya qiimihii aqoontu lahay dareema baan ayaga ugu ducaynaynaa oo kula dardaarmaynaa dugsiga sare runtii jiilal badan buu soo saaray aqoonyahan badan buu soo saaray una soo saari doonaa asad ay Burtinland leedahay iyo hanti ay Burtinland leedahay oo bulshada Puntland iyo dawladda Puntland ay ku aamintay mas'uuliyadeeda baan ka mid ah marka waxaan ku dadaalaynaa hadii Allahayno waxaan ku dadaalaynaa jiilka soo baxaya inay labo aragtiyood ka duulayaan aragtida koowaad oo ah islaamiga attitude-ka ama dhaqanka islaamka inaad kow ku yahay waa inaad tahay Islamic schools inaad ka soo baxdayna oo egta kow baano xooga saarayna hadii Allahayno waxa labaad oo ah inaad heshid waxbarasho tayo leh aqoon la isku madxanto Burtinland waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta anigu uma xulin ilaahay ay waafajiyay Burtinland macallimiinta dugsiga sare Burtinland joogta oo maanta ayaguna asadka ay u noqonayaan ayna bariya saadanbaba aan jecelahay iyo inay bulshada wax badan soo saareen wax badan sii saaraan garasho iyo aqoon aan ku soo xulay ma jiro laakiinse waa nasiib u yeeshay aqoontii iyo macallimiintii ugu kartida badnaa Puntland iyo Soomaaliya inuu dugsiga sare helay taasna waa nasiib aad hesheen ardada dugsiga dhigata waxaan kaloo hadalka aan ku soo gaabinayaa oo guddoonka waxbarashada iyo guddoonka waxbarashada degmadaba aan ugu ku wareejinayna hadii Allahayno ardada aidadka imtixaankooduna maalmaha soo socdo soo bixi doona iskuul kasto oo Burtinland arday ugu sareeya 4 sano scholarship ku dhiganaya waa aqoontiisa wuxuu ku qasay waxaan rabnaa jaamacaduhuna sida aan anagu saas u bixinayno inay jaamacaduhu laftigoodu beel kasto ay ka dhageysanayaan Puntland inay jaamacaduhu deeqaha waxbarashada ardada ugu sareysa oo Burtinland ardada ugu wada sareysa hadda intay wasaaradda scholarship ku soo dhijisay mahane inta kalena inay jaamacadu nagala qayb qaadan doonaan insha Allah hadii Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin sharaf iyo waxay noo tahay karaamo maantay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan quruxda badan oo ah farxadayadii maantay waxay ahayd maalintayadii marka inaad nala qaybsataan farxadda oo aad nagala soo qayb gashaan waxay noo tahay farxad iyo rayn waan idinkaga mahadcelinaynaa intaas kadib annagu waxaanu nahay ardadaas form 4 ka ah oo sanadkan ka baxday dugsiga sare Burtinland Secondary School waxaanu nahay jiil aqoon iyo akhlaaq lagu soo barbaarshay waxaanu anagu nahay dafcadii 13aad ee ka baxda Burtinland Secondary School waxaanu nahay dafcadii ugu badnayd waxaanu nahay dafcadii imtixaamaadka ka gaartay heerka ugu sareeyay duni aad ka tahay boqor ha ka noqon qof dayraca dahab baad u dhalatay sida maar ha doorsamin karaamaad ku duwan tahay sida dunyaha u lumin adigoo dalhayi kara adugu ha isla daadagin dhagtu way da'weyntahay magacaaga daahiri taariikh baad dambaysay ha ka tagin wax laga dido hambaliyo waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulkaygii macallimiintaydii sharafta badnaa oo aan jecelahay maanta inaan xaqan ka xusno waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa hooyooyinkii iyo aabayaashii Soomaaliyeed ee halkan soo gaarsiiyay runtii waxaan idin leenahay abaalkiina Allah subhanahu wa ta'ala ayaa gudi doona insha Allah ta'ala hadaan idinku dhabarkan ku qaadno xajkiina geena macayna ma gudbi karno heerkaas aan gaarsiiseen heerka si sareeyana waa jecelahay inaan si gaarsiisan hadii Ilaahay idinka daayo ayna waxa si maadaama waxbarashada jeceshahay inay heer ka gaadhid bal iskool gebigiisa chemistry ku amaan marka waxa ilaahay ay si dhanaan iyo aal kale la sheegay iron tahiidkii oxygen la qaatay
بورامين وعرياشي سو ما قرأت عرياشي أبى وقرأت و first 20 element ay si dhanaan iyo aalkari la sheegay iron heatkii oxygen la qaatay booramin fircoon iyo burcad la isku dhaashay silicon ta curiyosood iyo fircoon kale ani meetay mid deeqsiyaatay metel waa biyaha dhulka aad iyo aad ma santiin salaanka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladan ay ku qalin bedelanayaan dufcadii 13aad ee ka qalin bedelata dugsiga sare ee degmada Burtinle waxaan leenahay hambaliyo ardadan sharafta leh oo quruxda badan oo isugu jirta wiilasha iyo gabdhaha waxaan u rajaynaynaa inay guul wanaagsan ka gaaraan tacliinta hadda u bilowatay heerkeedii labaad waxaan kaloo ku guubaabinaynaa maadaama aan ka mid ahay odayaasha magaalada jecelahay bahda waxbarashada si gaarana aan u shinsado dugsiga sare ee Burtinle waxaan isleeyahay muddo ku dhow 10 iyo wax ka badan baan guddiga waalidiinta gudoomiye oo ahaa waxaan kaloo isku tirinayaa maamulaha dugsiga sare meesha kala ardadan ku farxaa muuqaalkooda anigu waxaan ka mid ahay macallimiintii Axmed Dheere iyo macallimiinta oo ah dugsiga hoose dhexe waxaan leenahay hambaliyo waxaan aad iyo aad ugu guubaabinayaa ardayda lagu sheegay tiradooda 156 arday oo ka soo baxday dugsiga sare ee Burtinle aan rajeynayna inay la socdaan in magaaladiina laga furay jaamacaddii bariga Afrika faraceedii Burtinle asadka ay ku xisaabtamaysaa jaamacadda bariga Afrika oo laga furay Burtinle waa idinka iyo anagu wali kama aanu weynaan inaan wax barano waxaanu diyaar u nahay inaanu idinla fariisanay idinka oo idinla bilowno idinkana waxaan idinka rajeynayaa inaad diyaar u noqotaan arinta marka dardaaran yar baa waxaan siinayaa ardayda qalin jabinaysa qofka bini'aadamka dhowr mar baa noloshiisa loo hambaliyayaa baa leeyahay waxbarashada markuu dhameeyo waxay ka mid tahay waqtiyada qofka ugu farxadda badan noloshiisa ee loo hambaliyeeyo marka aad baan idinku hambaliyeynayaa waxaan idinku la dardaarmayaa kow inaad waalidkii wax idin soo baray oo waqtiga badan idin soo galiyay aad u abaalgudaan waxaan kaloo idinku la dardaarmayaa inaad barataan wax noloshiina anfacaya cilmiga adduunka la barto uu tira badan yahay annaga Soomaali ahaana inta aan ka naqaano marka bini'aadamka kale loo eego waa wax kooban weey Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu literacy rate-ka yar bay ka mid tahay wax akhrinta iyo qoraalka marka la yiraahdo laakiin 20 sano u dambeysay wadankeena isbedel fiican buu sameeyay xilli waxa jirtay anigu hadda aan niyar ahaa oo qofka dugsi sare ka baxa la amaani jiray oo uu dadka ka socnaa la oran jiray qofka dugsi sare u dhameeyay maanta hadda ma aragtay everywhere yani meel kasta ay fadhiyaan dad dugsi sare ka baxay dad digri qaatay dad waxay ku sheegaysaa isbedelka weyn ee wadankeena ku socda iyo mustaqbalka quruxda badan ee naga horeeyay aad baan idin salaamayaa ardayda qalin jabinaysa oo ka baxday secondarygana waxa way aad baan ugu hambaliyeynayaa waxaan leeyahay hambaliyo dadaal dheer baa soo gasheen runtii waa mudan tihiin in aan waxa weeye waqtigeena idin kala qayb qaadano xafladiina qaaliga ah aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye inaad qalin jabinaysaan waxaan idin kula dardaarmayaa fadlan in aad waxa weeye waxbarashadiina sii wadataan oo ina halkaas uga harin khaasatan gabdhaha in ay waxa weeye ay waxbarashada sii wataan waa muhiim oo aysan kaliya guriga degin oo aysan guursan oo aysan daroob waxbarashada ka noqon ay sii wataan waxaan oranayaa marka ardayda kuwa hadda dhiganaya iyo kuwa hadda qalin jabiyay sida xadiisku uu yahayba bini'aadamka cimrigiisu waa 60 sano weeyaan saddex baana loo qaybiyaa qoliyahan socialka markay qaybinayaan 20 sano iyo 20 sano iyo 20 sano qofku waxa la yiri 20 sano ugu horeeya uu yar yahay wuxuu haystaa baa la yiri energy iyo time buu haystaa oo qofku wax weeyaan hadii subaxii uu iskuul aado galabkiina wax buu dhigan karaa habeenkii wax buu muraajacin karaa energy buu hayaa time buu hayaa cidna wax weeyaan xoolo u dirsan mayso cidna shaqo u dirsan mayso 20 sano ugu horeeya waa 20 sano oo qofka la doonayo wax weeyaan inuu waxbarashada basic ah oo asaasiga ah oo primary-ga secondary-ga si fiican uu iskaga dhiso 20 sano ku xiga wax weeyaan waa 20 hadda anaga ku jirna weeyaan waxa weeye qofku wuxuu hayaa baa lili energy iyo wuxuu hayaa money buu hayaa baa la yiri
oo qofkii waxaa markaas ka maqan waa maxay taymkii baa ka maqan oo waxa weeyaan fursad uu wax ku baranayo markaa ma jidho hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye sidii meel quraan laga bartiyo qafka iyo diinta ama madal rag wada qaaliyo qaran ku showrayo ama godol raxmadii qaadayo laysku kala qaaday xafladan qallo lama dhige quruxda loo oo loo qarooriyey habsami qaali waa tahaye qorshihii iyo farsamadeeda waa loo qabiiriyaye quruxdii iyo wanaaggan waa qaranka soo yaalo gobanimada qaangaadhay baa qaabka loo yiri gobanimada qaangaadhay baa qaabka loo yiriyo maqalloocano wayada qabsan loo dhigaye qalbiga ku diirsaday inay qaymo leedahayo bulshada qaybaheedoo dhan waa soo qadariyeenoo tifigii qarankiyo laakiin qalabyo waaweyne anna waxaan ku qaadqaadaya masaqaliyo anna waxaan ku qaadqaadaya masaqaliyaye ardaydan cilmiga baratay baan qolyar dhahayaye waqtigiinni waad qaadateen oo waa idin qayibaye qiimihii la rabay waad hesheen qurux wanaageede qarniganba taariikhda waa laydin qorayo salaan kadib waxaan u mahadnaqayaa ardayda qalin jabinaysa iyo qabanqaabiyayaashii soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan wanaagga badan intaan sharafta isugu keentay aad baan idinku mahadinayaa جزاكم الله خيرا بان idin dhahayaa khayr Allah idin siiyo xusuus badan baan galay arday qalin jabinaysa secondary ardadii ugu badnayd aad baan idinku mahadnaqayaa جزاكم الله خيرا waxaan kale u mahadnaqayaa khiyaartii iga horeysay oo hadashay oo jaamacadda bariga Afrika wanaageeda iyo waxtarkeeda ka hadashay ardada qalin jabisay wanaageeda iyo waxtarkeeda ka hadashay aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay oo kale inaan maanta ka qayb galo ardadii ugu badnayd oo ka qalin jabisa degmada Buurtinle heer secondary aad baan ugu faraxsanahay maalinta imtixaankii galayeenna waa u imid maanta ay qalin jabinayaanna waa u imid ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay Buurtinle waxaan joogay mar aysan ba qalin jabin iska daayay aysan waxbarasho lahayn oo xilligii burburka u dhacay taariikhda ninba meel ka soo galaya aniga Buurtinle primary school ka macallin baan ka ahaa xilligaas ay ka sheekeeyeen oo ardaydu daasada ku fariisanayay macallin baan ka ahaa marka ragii macallimiinta ila ahaana way la fadhiyaan waa ku faraxsanahay inay iga horeeyeen muxudiin baa kamida maamulaha shirkadda dhammaan macallimiinta iyadii hadda qayb baa ka joogta socota jooga Abdullahi Allah u naxariisto Abdullahi yare maamulo noo ahaa inta waa ku faraxsanahay maanta inaan qalin jabintaas ku soo beegmay waxaan kale aad ugu faraxsanahay maanta inaad haysataan jaamacadda aad dhigan lahaydeen ayadana waa ku faraxsanahay warbixin yaraan rabaa marka haddii aan la idmo inaan kaga hadlo run ahaantii ardada Buurtinle waa ardada ugu taalantiga fiican baa la oran karaa deegaanadan Puntland ama Soomaaliya waa arday aad waxbarashada u jecel ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inay Buurtinle noqoto magaalada aqoonta ku hogaamisa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland baan ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah taala waa hamiga aan leenahay Buurtinle caqabadaha hortaagnaa waxaa ka mid ahaa jaamacad la'aan maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxay heshay jaamacaddii ugu facan weynayd Puntland jaamacadda ugu faracyada badan Soomaaliya jaamacaddaas oo 20 jirsatay sanadkii 21aad ah jaamacaddaas baad hesheen insha Allah taala
waxaanad heli doontaan brofesorro khibrad leh oo ilaa iyo 20 sano 21 sano khibrad leh insha Allah taala baad heli doontaan ilaahay mahad leh allii isugu keenay kulankan qiimaha badan oo ah kulan aad iyo aad u qiimo badan oo aanu kula wadaagayna farxadda ubaxayagii dhalinyaradayadii caruurtayadii oo wax baratay oo ay tahay maalintoodii waxaan leenahay alf mabruuk aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa waa mahadsantihiin waa soo dadaasheen waqti dheer baad geliseen waxbarashadu wax iska saaran ma ahan heer baad soo gaadheen waxaan leenahay waa dadaasheen dadaalkiina halkaa ka sii wada waxaan mar labaad u mahad celinaynaa waalidiintii ku soo tabacday ardadan oo waqtigooda inay halkaan soo gaaraan ay ayaguna qaybta ka ah oo la'aantood aan waxba la heleen marka saddexaad waxaan u mahad celinaynaa maamulayaashoodii iyo macallimiintoodii qiimaha badnaa oo runtii halka markay ka hadlayeen qiirada iyo naallada ayna gelinaysa aan marna la soo koobi karin waxbarashadu saddexdaas la'aanteed ma hirgasho waalid macallin iyo maamul iyo arday saddexdaasoo isgarabsaday baa halkaa wax soo gaarsiin kara waxaan leenahay waa dadaasheen kulligiin waa guulaysateen annaguna waa idinla guulaysanay jazaakumullaahu khayran hal eray waxaan rabaa inaan idhaahdo ardada maandhooyinow dadaalkiinnii qaybtiisa koowaad waa la arkaa waa la ammaanay buurtinle secondary school iyo secondaryada kaloo buurtinle wax ka dhiga waqtigii ay soo shaqaynayeen iyo dafcadda aatiin waa la sheegay 13 dafcadood baa ugu dambaysaan buurtinle sharaf bay u tahay meeshii waxbarashadeedu ka soo bilaabantay waa la ogaa halkaanaad maanta soo gaadheen waa qalin bedelanaysaana qalin jabin dhab ah ma ahan 2 3 4 baa idiin haray qalin bedelasho dambe ilaaha idinka dhigo oo ha idinkula garab galo kuwii waxa ay bartaan ay noqdaan wax naafic ah halka aad wax ka sii wadaana ka sii wada doorashada deegaanka iyo meelaha wax ka baranaysaan dib baan uga soo laabanayaa ardayntaasaan leeyahay waalidiintii la soo dadaashay oo waqtigaa geliyeyna hawl kama daalooyin hoga waa meesheedii idinkuna sidii oo kale dadaalka ula daba jooga ilmihii si aynu u noqonno bulsho wax baratay iyo magaalo magaceedu uu noqdo madiinatu cilmi magaalo cilmi sidaasaanu aad ugu faraxsannahay inay buurtin la noqoto waalidkana intaasaan leeyahay ardada mar labaad waxaan ugu celinayaa ixtiraama waalidkiin iyo macallimiintiinii oo sida halkaan laga sheegay oo macallimiintiinu idiin ammaanaysay oo ay ugu farxayeen waxaa laydinka rabaa inaad waalidiintiinnii iyo macallimiintiinnii ixtiraamkaad u haysaan bulshada reer buurtinle macallimiinta ayaga ku noqon mayo waa mahadsan yihiinoo waa soo dadaaleen oo dad bay noo soo saaraanoo waa ugu abaal haynaayo insha allah waa ka warqabaynaa sidaa iyo si kasii fiican noogu sii wada dadka reer buurtinle waxay maraysaa marxalad aad iyo aad u qiimo badan halkan waxaa ka hadlayay xilligii burburkii buurtinle meeshay waxbarashadu ka soo bilaabatay daasad in lagu fariisanayay macallin uusan jirinin arday uusan jirinin dadaal rag ay sameeyeen bay halkaa wax ku soo gaareen oo maanta laydinku yidhi idinku nasiib baad hesheen waxaan rabnaa mar labaad sidii loogu guntaday waxbarashadii asaasiga ahayd inay heerkan soo gaadho oo ay wax ku noqoto meesha ay maanta wax marayaan ay gaadho mar labaad innagoo isgarabsanayna macallin iyo waalid iyo odayba inaynu u istaagno sidaynu waxbarashada qaybta inoo dhiman oo hadda la sheegay inay degmadeenna ku soo korodhay inaynu qayb uga wada ahaano oo se uga ahaanaynaa waxaa la rabaa ardada in laga helo ku nagaansho deegaankooda maadaama ay magaaladoodii ku heleen oo arday reer buurtinla ah oo ku helay nasiibkaas uusan jirin iyaga hortooda waxaa la rabaa inay iimaansadaan dalkooda inay degmadooda iimaansadaan magaaladeenna waxaa la sheegaa inay tahay meel transiit lagu maro oo laga gudbo maxaa nagaadi ka dhigi kara waxaa nagaadi ka dhigi kara waxyaabo badan oo aan ku soo taamaynay inay buurtinla wax noqotay oo la helay oo ay ka mid tahay inay magaaladeennii la jaanqaado magaalooyinka kale xagga bilicda horumarka biyaha caafimaadka iyo waxa la midka ah waxbarashadu aad bay u sarraysaa laakiin maandhooyinow idinka waxaa laydinka rabaa inaad jaamacadda degmadiinna idinku timid oo la leeyahay puntland oo dhan bay ugu sarraysaa iyo soomaaliya markii jaamacadii hore laga soo tago iimaansada allah idinku anfaco cilmigiinnana mid naafaca allah ka dhigo waalidiinta la sheegayo duruufaha ay dadka wax ku barayaan iyo walwalka ku dhacaya
waxaa la rabaa iyaguna inay sidaasoo kale ay ilmahoodii ku qanciyaan oo annagoo dhan aan ku qancinno waa ilmaha iyagii inay ku sugnaadaan magaaladooda oo wax ka bartaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa inaan goobjoog u ahaano haddii alla qadaro dafcadda 13aad oo jaamacadaha Buurtile ka baxda aad iyo aad baan idin ku mahadcelinaynaa waxaan la wadaagaynaa farxadda iyo reeraynta iyo guusha ay gaareen ardada Buurtile Secondary School oo ardada ugu badnayd oo ka baxda abid oo garaj fiican ku soo baastay 100% aad iyo aad baan anaguna idin la wadaagaynaa farxadda iyo reeraynta waxaan idin leenahay guul baad gaadheen meesha iyo meel ka sii fiican baan idin rajaynaynaa inaad sii wadataan waxbarashadiina qaybaha idin hareeb baan idin rajaynaynaa waalidkii iyo macallimiintii idinku soo tabcay oo har iyo habeen inta idinku soo qarash garoobayay ama talo iyo tusaale idin la soo taagnaa ayagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayral jazaa 100% waa idin la wadaagaynaa anaguna inta kadib waxaan rabaa insha Allah waqtiga kooban awgiis inaan soo fududeeyo maadaama wixii leed oran lahay waanaha iyo wixii wacdiyaha iyo wixii tala soo jeedin lahaa kulli laga soo hadlay kulliyada dooran lahaydeen iyo sida wax u baran lahaydeen iyo sida darajooyinka idin dhiman u dhameystiran lahaydeen inta waalid soo jiraan oo ku noqon mayo waxaan rabaa insha Allah tacaala kaliya inaan adkeeyo reer Buurtile hadaynu nahay sanawaadkii dhammaa oo ina soo dhaafay waxaynu ku taamaynay jaamacad baan u baahanaa dib madaxweyne inoo yimaado iyo haddii isma inoo yimaadaan iyo haddii aqoon-yahan inoo yimaado iyo haddaynu shirar yeelano jaamacadda maskaxdana ka qaylin jiray baahidii jaamacadeed waa ina ka baaday alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa inoo keenay gurigeena inoo ku timid waxaan idin kula taleenaa inaad ka faa'iidaysataan qofkii aan haysan hadda ay u diyaarsaneen scholarship dibadda iyo mid gudaha iyo kafaalaqaad kale oo qof kale oo aan ehel ama familka uu meel kale wax uga kafaalqaadi ay soo haysan oo laga yaabo daruurta inay macnaha ay ku khasbiso intiina kale waxa idin leenahay aad iyo aadna idinku booreenaa jaamacadiina ka faa'iideysta haddii idinku aydan gelin oo aydan ka faa'iideysan oo waalidkii iyo kharashkii iyo safarkii iyo walwalkii idinku aydan baahida kafayn haddii jaamacaduna waxay u baahan tahay inay socoto oo baahidii loo keenay laga faa'iideysto marka intaasaan aad iyo aad idinku dhiirigelinaynaa waxaan marka hore u mahadcelinayaa farxadda la qaybsanayaa soo dhawaynayaa ardayda qalin bedelatay waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigaad barateen haydu ku anfaco cilmigana waxa ugu fiican midka ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado cilmiguna ma kala maarmo oo qofku inuu diin iyo maadi labadaba ka dhisan yahay waa wax loo baahan yahay oo muhiim weeye marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa iskuulka Buurtile Secondary School iyo maamulkiisa iyo macallimiintiisa oo runtii soo saaray ardaydan aadka u quruxda badan ninba maalin naga qoslisiyo wuxuu nimayow xafladaha gabdhaha goortay soo ka soo qayb galaan gabdhaha ardayda waa qurux badan laakiin wiilashu ma madow yihiin marka si gaar ah baan ugu mahadcelinayaa ardayda ka qalan jabisay iskuulkan Buurtile Secondary School waana bogaadinayaa arintan runtii anagu ka golis ahaan inta badan goortii la yiraahdo golis dadku waxa u soo baxaysa isgaarsiin iyo wax badan baa u soo baxaya laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan golis inay waxbarashada si weyn uga qayb qaadato waxaan in xasuusinayaa runtii halkan waalidiin badan baa fadhida oo runtii ku liibaanay adeegyada golis ay bixiso oo ay ka mid tahay adeega hoodo oo ayagoo guryahooda jooga aan ugu keeno natiijadii ardayga heerkii awal ay u aadi jireen in iskuulka lagu dhajiyo ayagoo guryahooda jooga inay moobilka golis kaga faa'iideystaan waxaan kaloo runtii dhiirigelinaa iskuullada dugsiyada sare si fiican baa isku naqaanaayo waxaan kala qayb qaadanaa barnaamijkii tartan iyo tacliin oo runtii iskuulaadka hadda iskuulkan dugsi sare Buurtile Secondary School waxaan malaynayaa mar buu qaaday wuxuu sidoo kale muntada asaguna 2 jeer buu qaaday ayagana si fiican baan isku garanaynayo dugsiyada sare si gaar ah baan iskuna guud ahaan
waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ardaydan quruxda badan ee sharafta ka muuqato oo runtii ah dufcaddii u ballaarnayd oo u tirada badnayd ee ka qalan jabisa dugsiga sare ee Burtinle Secondary School. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii u soo dhabar adeegtay 4 sano in ay fiidan ka bixiyaan ardayda quruxda badanna diyaariyaan la'aantood runtii waxba ma suurtoobeen. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii u soo dhabar adeegay oo natiijada miraha qiimaha leh soo saaray. awwalu bismillaahi raayban bilaawaya kulanka maantana kelmad baan kooranayaa salaamu calaykum soomaaliyey dhammaan salaamu calaykum saafsaaf baan idinka maray maxamed nabigeeni baan ku saliyey salaan sareeyow maamulkaygaan salaamayaa dhammaan martii sharafta salaam baan u diirahayaa salaan dabadeedna mahad baan u celinayaa mahad ilaah weeye say maantumaadaashu tahay waxbarashada reer Puntland baan ka bixin warbixin kuwii ka qiirooday qurbahay wareegayaan kuwii u qiirooday wadankooda qaaliga kuwa u shaqeeyay wadankooda sharafta badan kuwa koorsooyinkii kaalin sare ka galay kuwa koorsooyinkii kaalin sare ka galay kuwa baranaya kumbiyuutarkiyo cilmiga kuwa qalin dahaba taariikhda loogu dhigay maamule Axmed oo haleeray baan ku oranayaa maamule Axmed oo haleeray baan ku oranayaa diyaarad maad raacin dalshiisheeye kamaadimaan diyaarad maad raacin dalshiisheeye kamaadimaan duruustaad keentay dalkii hooyo baa aflaxay duruustaad keentay dalkii hooyo waa aflaxay diyaar baa tahay maskaxdiisu daalanayn oo xaasidka jabane xabiibkaagu waa ilaah macallimiintaydii baan meesha kaba maqnayn macallimiintaydii baan meesha kaba maqnayn macallimiin heeganoo hawl karoo wax tara macallimiin heeganoo hawd karoo wax tara oo noo dadaalay sadeel qafna aan lahayn oo noo dadaalahay sadeel qafna aan lahayn arday dadaalayhiisoon dooda badan jeclayn damiin iska dahaya deel qaafna lagama helo waxaan u tahniyadeynayaa bahda waxbarashada oo maanta inta soo saartay dadkan quruxda badan oo secondary-ga ka soo qalinjabiyey waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay waa warshad baad soo saarteen warshadaas marka waxaa la rabaa waxbarashada in la sii wadaa la rabaa hadda secondary baa ka baxdeen bachelor baa idinku xigta master baa idinku xigta PhD baa idinku xigta waxbarashadii macnaha marxalad baad ka gudubteen laakiin wax badan baa idin haray wax yar haddaan ka xuso degmada dhowr qodob baan rabaa inaan dul istaago taariikhdii hore oo waxbarashada waa laga sheekeeyey ragga hadda odayaasha oo maamulayaasha ama ah
ama bahalka la yidhaahdo horta markaa guddoomiyaha degmadana daasadihii la sheegayay ninkii bedelay baana ardayda ha la gacan qabto oo maalan waynu ognahay oo sicir barar xun baa jira oo dowladda lafteeda aan u jeedinayo halkii doolar wuxuu marayaa $40,000 buu maray maantayda $40,000 noloshu waxay ku xiran tahay shilimaadka dadka loo soo diro reerkii maanta 200 loo soo diro oo 5 ama 6 arday ay wax dhigato dhib bay ku tahay runtii dhib bay ku tahay marka arrinta maciishadana dowladda Puntland iyo madaxdeeda waxa laga qabto halka abiilkaas aan ka jeedinayaa ama fariintaas baan ka gudbinayaa maanta noloshu meesha ay marayso waxna lama dhigan karo lamana noolaan karo haddaan wax laga qaban aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad waana u ducaynayaa intii dhimatay oo bahda waxbarashada ka mid ahayd inta wadana waxaanu leenahay waxa la yiri waa intaasoo loola sii dhawaadaaye jiilba jiil hala soo saar jaamacaddii waa laga hadlay laynoo keenay maanta inta bariga Afrika haddaynu haysano jaamacado kale oo badan waa inoo imaanayaan waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare dadaalka iyo juhdiga badan oo ay ka geliyeen waxbarashada dugsiga sare Buurtinle oo runtii xudun u ah waxbarashada Buurtinle marka labaad waxaan mahad celinayaa waalidiinta ardaydan iyo inta kale oo ka qayb qaadatay xafladan iyadana waa mahad celinaya waxaan leeyahay ardaydana hambalyo waxaan soo dhaweynayaa jaamacadda bariga Afrika faraceeda Buurtinle waxaan leeyahay ardayda jaamacadda halis diiwaan geliya dhammaantiin intiinaan qofkii hore isu qorayna waa qoran yahay kii kalena hadda hays qoro intii arts ahayd artskooda ha barteen in sayniskooda ha barteen waxba is wareerinna toos u gala waxa laga sheekay taariikhda Buurtinle Cabdulqaadir iyo Abshir iyo Muxiidiin yaa sheegay hadda inta ku noqon maayo laakiin dugsiga sare Buurtinle oo maanta ay ka qalb jirinayaan 156 waxaan ku aasaasnay 40 arday isagoo dhismo hadda inta uu leeyahay waxaanu diidnay in waxbarashadii aanu isku dhex yaacino 40kii sideedaadka ka baxday baanu ogolaa sanad walbana 40 iyo 50 iyo 60 iyo korba soo baxayeen marka alxamdulillah rabbil caalamiin weeye maanta meesha uu marayo meel laga fariisto laayahay inta badan runtii waxa mahadda iska leh maamulka iskuulka iyo guddiga waalidiinta guddigii Muxiidiin sheegay oo rag waxay ahaayeen culculus oo muddo ka soo shaqeeyay marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa ardayda waalidkood macallimiintooda iyo intii kala qayb qaadatay ardaydana waan u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa dhammaan cid walba oo isku hawshay waqti gelisay soo abaabushay inay xafladani dhacdo si gaar ah ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta ardaydan ku soo taabtay oo ma garanaysaa juhdiga iyo caqliga iyo maskaxda iyo dadaalka gelisay waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa waalidiinta ku soo taabtay oo maalin walba ilaa ay heerkan ka soo gaarayeen hiil iyo hooba la garab taagnaa laga yaabo inay habeenno badan u soo jeedeen iyaga dartood si ay fiigooda u heli lahaayeen iyo noloshooda idinkana waxaan idinku bogaadinayaa inaad waalidkiin si gaar ah uga warhaysaan qof walba oo idinka ka midana maanta markuu ku noqdo uu yiraahdo tuu jilbaha ku dhago hooyo aabba waa mahadsantihiin waxaan aad ugu maanu hadda muddo dhowr beri baan joogay shaqo waxbarashada qusaysaan u joognay dad badan oo maartay bulshada reer Buurtinle hawsha nagala qayb qaatay aad baan ugu mahad celinayaa ma garanaysaa Muxiidiin iyo Cabdicasiis iyo ma garanaysaa gudoomiyaha degmada iyo cid walba oo hawshaas gacan ka geysatay inay si loo baahnaa ku dhamaato oo xil wareejintaasi dhacdana waa u mahad celinayaa waa mahadsantihiin waxaan rabaa wax yar inaan istul taago horta anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xafladda tan ka soo qayb galo waxaan u malaynayaa xaflado badan baan ka qayb galo kuwa sideedaad ah kuwa machad ah
iyo kuwaan aan hore iyagana uga qayb galay farxad weyn bay ii tahay 156 arday oo ka mid ah ardayda maaragtay ka qalin jabinaysa gobolka Nugaal sanadakan xafladooda inaan goobjoog ka ahaado shuntii shalay baan tagi lahaa goortii la igu yiri dugsiga sare baa qalin jabinaya safarka waa baaji hawlo badan baana maaragtay hawlo badan baana isugayay laakiin farxadaydaaba waxay ku jirtaa inaan maaragtay ardaydaas la joogo farxadiina inaan idin la wadaagno inay ku hambalyeeyno inay ku bogaadino waxaan ku soo dhaweynaynaa shahaado sharafta ay ardaydu guddoonsiinaysa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Cabdisalaam Sheekh Xamuud oo ay guddoonsiinayaan waxgaradka degmadu gudoomiye shahaadada waxa guddoonsiinaya gudoomiyaha waxbarashada degmada gudoomiyaha guddoonsiinaya waa ugaas macallin محمد عبد الله محمود النيري معلم محمود عبد الرحمن محمد معلمين تنقل يا عرضات عفوا معلم محمود عبد الرحمن waxaan u yeerayaa xurmadle macallin maxamuud nuur cismaan macallin yuusuf ibraahim geelle مع العجولي محمد جامع وحنو يا معلن جامع محي الدين احمد أنا علوس ميل فوق بلاقي معلمكم مركو إنه واحد بركسه أيام يوكسوته ومعلم محمد عثمان داهر حسين أومني ومعلم عبد الحكيم نور الدين عبد الرحمن عمر عبد الرزاق معلم عمر عبد الرزاق معلم عمر عبد الرزاق waxaan sidoo kale u yeerayaa oo macallin maxamuud cabdullaahi معلم محمود عبد الله علمي معلم أحمد محمد جامع معلم أحمد مرسل حسين haddana gudoomiyaha waxbarashada gobolka Nugaal ayaa wuxuu siinayaa shahaado sharaf maamulaha dugsiga sare ee Buurtinle Axmed Cabdirasaaq Cali Nuur
Thank you.